Bismillahirrahmanirrahiim. Casharkan waxaan ku baran doonaa sida loo isticmaalo save as. Save as iyo save maxay ku kala duwan yihiin? Waa su'aasha. Waxay ku kala duwan yihiin save as waxaa loo isticmaalaa markuu dokumeentigaaga cusub yahay, markuu dokumentiga bilow yahay oo aad rabtid inaad save gareysatid oo magaca u la baxid magac cusub, waxaad isticmaali doontaa save. sidoo kale markii aad dokumenti jiro aad qoraal ama wax gudihiisa aad ku qortid oo isbedel gudaha aad samaysid, iyadana waxaa isticmaali doontaa save si aad u save gareyso waxyaabihii aad ka bedeshay gudihiisa aysan kaaga lumin. sidaas waxaa loo isticmaalaa save. balse save as waxaa loo isticmaalaa markii dokumentigaaga oo dokumenti jiray markii aad rabtid inaad location-ka meesha uu ku save gareysan yahay inaad ka bedeshid ama magaca ku save gareysan inaad ka bedeshid oo magac kale aad la baxdid. labadaas qaabo markii aad rabtid waxaad isticmaali doontaa save as. Save as waa inaad magac ka bedesho, magac uu lahaa waa inaad ka bedesho, iyo in aad position-ka uu ku save gareysnay location-kii uu ku save gareysnay inaad ka bedeshid oo meel kale aad ku save gareysid. sidoo kaleeto isla markaas aad save as ku sameynaysid dokumentiga aad save as ka sameynaysid wax isbedel kuma imaan doono. waa dokumenti la mid ah ayuu ku save gareynayaa, wuxuuna kugu save gareyn doonaa magaca uu la baxdo iyo meesha aad geysato, asiga oo wax saameyn uusan ku yeelan dokumentiga aad dul taagan tahay. hadda tusaale ahaan dokumentigan hadda aan ku jiro aan soo xiro meesha uu yaalo si aan iskula aragno. markaan soo xiro wuxuu ii yaalaa desktop-ka, waxaana igu qoran lesson 1 ila fiiri. save as markii aan sameynayo aniga oo waxba ka bedelin ayuu mid la mid ah ii sameyn doonaa. bal aan aragno ii soo kici dokumentiga. hadda waxaan ku jirnaa dokumentiga lesson 1 aan magaca ka bedelno, magac kale aan ula baxno. waxaa tegaynaa marka save as, waxaa tegay file, waxaa ka dooranaa save as. save as markii aad dhahdid wuxuu kuu soo bixin doonaa file name meesha ay ku qoran tahay, waxaa kugu soo muuqan doona magacii uu watay dokumentiga aad ku jirto. bal aan ka bedelno magaca lesson 1 ka waxaan ula bixaynaa casharka koowaad. casharka koowaad ayaa ula baxnay, magacii ayaa ka bedelnay. aan save gareyno marka waxaa ku save gareynay isla desktop-ka si aan u aragno dokumentigii hore magaciisa inuu wato, midkan cusubna lee sameeyey si aan iskula aragno. save hadda waxaan doortay desktop-ka, soo soco save dheh. hadda kor fiiri magaciiba waa ka bedelay, maxaa ula baxay casharka koowaad. aw dokumentiga hore ee lesson 1 ka ahayd ma bedelay? maxaa ku dhacay? maya, ma la bedelin. dokumentigaagi hore ee lesson 1 ka ahayd sidiisa ayuu u jiraa, asiga oo san wax isbedela lagu sameynin ayuu wuxuu noo yeelaa desktop-ka. dokumenti cusub oo magac cusub watane waan ka dul sameysanay oo magaciisa aan ula baxnay casharka koowaad. bal aan isla aragno oo tagno desktop-ka. labadii dokumenti ma ii yaalin, iga soo xir. markii aan soo xiro desktop-ka ayaa joogaa. waa kan dokumentiga casharka koowaad. dokumentiga cusub oo hadda aan sameeyey oo save as aan ku sameeyey waa kanaa. kii hore aan ka sameeyeyne lesson 1 ki ahay waa kanaa. lesson 1 ki fur, isbedel maa ku yimid? maya, waa sidiisii lesson 1 ki oo wataa. kanne wixii ku jiray ayaa ku jira, asigana isku mid waaye, magacii ayaa ka bedelay. sidoo kaleeto inaad location-ka aad ka bedesho meesha aad ku save gareynaysid iyadana waa isticmaali kartaa. location-ka markii aad rabtid file ayaa dhehaysaa, save as ayaa ka dooranee. save as markii aad dhahdid waxaan folders aa ujeedidoo dhammaan ujeedaa meeshaa rabta ayaa gey kartaa. downloadiska ku save gareysan kartaa. waxaan folderskan dhammaantood midka aad rabta ayaa dooranaysaa, asiga ayaa kor kuu soo fuuli doona si uu kugu muujiyo inaad folderkaas aad ku dhex jirtid, kadibna waa ku save gareysanaysaa. waxba dhibaataa ma leh. hadda dokumenti cusub aan sameyno desktop-ka si aan u aragno oon meel kale aan iskaga gelin, magac kale ula baxaynaa. waxaa u baxsanaynaa casharka labaad. casharka labaad igu save gareey. waxaana meesha aad ku save gareynaysid mar la arkaba isha ku hay si aad dokumentigaaga meesha uu ku yaalo aad u aqoonsatid. desktop intana maxaa iga dooran desktop. save ii dheh. casharka labaad waa inaad desktop-ka ka helaa. waa kan casharkii labaad.
waxaan ku sameeyay save as. waxaan rajeynayaa inaad fahantay save as. inta aan ku kulmi doono casharka xiga waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.